madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdidii uu hogaaminayay ee safarka shaqo ku joogay magaalada Cerigabo ayaa habeennimadii xalay kulan la qaatay salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka gobolka Sanaag kulankani oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee wafdigu degan yahay. ugu horeyntii madaxweynaha iyo wafdidani ayaa waxgaradka gobolka Sanaag si qoto dheer uga wareystay horumarka gobolka iyo meelaha sida gaarka ah ugu baahan in xukuumaddu wax ka qabato. madaxweyne oo waxay yiraahdeen wadooyin baa inaga dhimane wadooyinka la inoo dhamaystiro waa wadada airport-ka kale iyo airport waa wadadan aynu joognay madaxtooyada oo ilaa halka kan iyaduna oo gaaban waa wadada mayd iyo Cerigabo waa wadada hadaafsimo ilaa Cerigabo inta ka dhiman yaa madaxweyne inaad noo dhamaystirto ayaanu codsanaynaa. mudane madaxweyne amnigu aad buu fiican yahay horumarka gobolka aad ka qabatay haday madaxtooyada maanta aynu ka hadlayna tahay haday wadada Cerigabo tahay haday airport-ka tahay haday toombaleenka magaalada laga sameeyay tahay aad iyo aad baan xukuumadda uga mahadnaqaynaa. mar hadii halka ay ku dhan yihiin beelihii gobolka Sanaag iyaduna waa darajo xagga dawladana waxaanu leenahay maanta mar hadaa madaxtooyadii gobolka Sanaag joogtaan madaxtooyada Hargeysa in badan bay Hargeysa taale mudane Muuse Biixi Cabdi in yar hadna loo soo dhaweeyo mudane madaxweyne marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu kaaga mahad celinaynaa wafdigan heerka ah inaad soo adigoo hogaaminaya noogu timaado gobolka oo aad waliba ka soo degto airport-kii Cerigabo oo ay diyaaradii soo caga dhigato gobolka mashaariic badan baa laga fuliyay airport-kii oo la dhammaystiray oo wuxuu u baahnaa laga qabtay oo shalay madaxweynuhu ku soo degay wadadii tabca maydh iyo isku xidhaysay Cerigabo oo iyana dib u habeyn lagu sameeyay dekadii maydh oo iyana dhammaystiran madaxtooyada aynu maanta fadhino ilaah baa mahad iska leh. marka hore horta waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Sanaag oo aad u firfircoon oo nala shaqeeyay maayirka Cerigabo isaguna Cerigabo iftiinba ka dhigayo kol Cerigabo raf bay haydo isagoo baarlaamiyada noogu horeeyay noo sameeyay. mudane madaxweyne waxaad ku suntan tahay madaxweynihii ugu taariikhda fiicnaa gobolka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa tahay madaxweynihii waxqabadka waxaanu ka codsanaynaa mudane madaxweyne gobolkan aanu ku sugannahay reer kasta way ka shaqeeyaan wasaarad kaliya aanu ka shaqeynaa ma jirto hadaan beelaha gabuuyi waxaanu ka doonaynaa de waxaad noo sidayo weyn kulay wax weyn oo reer Cerigabo ka farxiya oo de kulay dhaguuna dilaacaan waad noo sidaa. adigu madaxweyne waad ka duwan tahay waayo waxaad wadataa wasiiradaadii iyo dawladdaadii oo dhammaystiran ayaa halkan nooga muuqata. madaxweyne waanu kula shaqaynaynaa reer Cerigabo haddaanu nahay diyaar baanu nahay waanu kula shaqaynaynaa madaxweynaha waa ugu celinaynaa rag badan oo saaxiibada aanu nahay kolba waa ka xanaaqaya waa ugu celinaynaa. maanta anagu waxaan filayaa mar hadduu dawladdii oo dhan wado oo ay dhan yihiin inuu soo gaarsiiyey wadana gaarsiin doono inta aan weli la gaarin. qabad wixii ahaa ee gobolka laga qabtay waa kuugu mahadnaqaynaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa adna waa kuugu mahadnaqaynaa wixii alla kuugu alhaameeyay aad qabatay. markuu iska iman doona madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan anigu soo dhaweynayaa waxaana wada deeqa institutionada dawladda anagu waxaan jeclaan lahaa in loo adkeeyo institutionada dawladda oo amnigu ugu horeeyo madaxda iminka gobolkuna way isla haystaan bada saabka taliyaha qaybta maayarka aad iyo aad baanu u bogaan. annaga oo ah beelaha halkan wada diga dhammaantayo waxaan hambaliyo kugu siinaynaa u ogol lahay kugu hambaliyeenaynaa in sadbursiyo la siiyo beelaha harti annaga inaga diyaar tahay oo hareero la taagan oo mar walba ku gooxayna si aynu helo qaran mid ah ayay arrintaasi inagu hogaamin doontaa madaxweyne. inuu ka gudoono dawladda soo guurtay khayrka ay inoo wadaan
iyo talada ay noo wadaan iyo tusaalaha iyo wada jirkeenna iyo inay doonayaan aynu ka gudoono. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdidii uu hogaaminayay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. sharaf weyn bay aad iyo aad idinka iyaana kama noogu tahay inaan caawa kulanka intan leeg halkan aynu isugu nimaadno. nolosha bini'aadmigana ayaana had iyo jeer qeexaysa in dadka marka ay dana ka dhaxayso arrimahooda inay isugu yimaadaan. waa gobolkii awoowayaasha. gobolkani waa la yaqaanaa taariikhdaasi inuu isaga laga soo jeedo, laakiin haddii ay sidaa tahay waa in ay jirtaa wax badan oo uu gobollada kale kaga duwan yahay oo ah wada dhaqanka, nabadgelyada, midnimada oo mararka qaarkood aan ceerigaaba ku wanaagsanayn. maanta dalka waxaa ka jira buuq badan oo xisbiyada ah. xisbiyada mucaaradku aad iyo aad bay nooga cabanayaan. kulmiye haddaan nahay iyo madaxweyne haddaan nahayba eedo badan bay noo soo jeedinayaan. intaana qabateenu garanahay iyo intaana la saarayana allahu yaclam. waxaana la saarayo xaq bay u leeyihiin. soomaalidu waxay tidhaahdaa doob tuhun baa dilay. ninka doobka la yidhaahdo tuhun baa dila. ninka mucaaradkaana markuu dibaddaa joogo tuhun baa dilo. wallaahi wixii baa dowladda waraqdiya madaxweynuhu isku qaatay hadduu idhaahdo. waxa kaloo ay xaq noogu leeyihiin inaanu dhegaysano. waxay xaq noogu leeyihiin inaanu intii suurtagalaba u doon qaadanno wixii aan sharci noo diiday. waxay xaq noogu leeyihiin inaanu aad iyo aad ula qarcinno oo tooshoon sabarsanna. intaa waa ogolahay waananu fulinaa. intaa haddii laga budo iyaguna ay isxakameeyaan annaguna waxaan laga tabanayo waabanu ogolahay. iminkaan idin leeyahay waa ogolahay, horena waa ogolayna. gogol baanu ogolahay, fadhigaanu ogolahay, wada hadalkaanu ogolahay. wixii aan sharcigii diidin haddaan madaxweynaha ahay eanu sharciga hortaagnayn oo dhan baa kursi wuu sileesanaya adoo wuu kororsanaya adoo wuu siyaasanaya oo horta awooddaa male inaan kororsadaan shacabka ogol mooyaan. ta kale marka hore waa in xisbiga soo baxaan 10 sanaba waa asal oo dadkii 10 sano xidha ay soo galaan sharcigeedina waa dheey. haddii xisbiga dhameeyaa tii kale uu taagan tahay dhibaata ma jirto. qayradan iyo buuqan iyadaa sii daahiraysa. mar walba doorasho la jiitamo oo ikhtiyaar u saxdaan dul fakar geeyo xagga ka imanayso iyo dowladda toona. warsame kaaf Cabdirashiid Aadan, Star TV, Ergaabo.